ganacsatada yaryar si ay kaaga caawiyaan inaad isu geyso qaybo iyo sida ay u qaabaynayaan ama u saameeyaan suuqa. Qaybinta waa hal faa'iido oo ay macaamiishu gaar ahaan kuwa dakhligoodu yar yahay ama aan iswaafaqayn ay ka helaan. Assalaamu calaykum asxaabta, waan idin salaamay. Haddaad channelka ku cusub tahay, subscribe-na soo dheh. Haddaad horay noola joogtay, leekinoo saar. Mahadsanidin. Maanta iyo dalka Tansaaniya, ganacsatada yaryar ee Tansaaniya iyo qaabaynta suuq. Qiyaastii 60% dadka adduunka ka shaqeeya waxay ku sugan yihiin dhaqaale aan rasmi ahayn. 66% Afrikada Saxaraha ka hooseeya iyo Tansaaniya dhaqaalaha aan rasmiga ahayn waxaa ka shaqeeya ilaa 75%. Waaxdu waa ballaadhan tahay, waxayna dabooshaa meelaha ay ka mid ka yihiin ganacsiga, beeraha, qoyska, ganacsiga yaryar sida farsamada gacanta iyo harqaanka, gaadiidka iyo wixii la mid ah. Waxa aan diiradda saaraynaa waddooyinka ama ganacsatada yaryar ee isbeddelka suuqa. Waxay bixiyaan badeecooyin iyo adeegyo kala duwan si yar iyo qiimo jaban maadaama aysan bixin canshuur ama aysan lahayn wax badan oo dheeraad ah. Haddii aad tahay suuqgeyn maxalli ah ama booqdayaal ah ama cilmi baadhe ka shaqeeya Tansaaniya oo wareegaya jidadka mashquulka badan ee Liberty, ee Mwanza, Bondeni, ee Arusha ama Kariakoo ee Daarusalaam oo raadinaya xeelado lagu bilaabo badeecad ama adeeg, meelaynta sumada, iibinta wadista, kordhinta wacyiga ama wax kasta oo ay tahay, ma dafiri kartid jiritaanka ganacsatada yaryar oo ah isku xirka muhiimka ah ee silsiladda saadka tafaariikhda. Oo haddii aad ka imanayso dhaqaale suuqgeyn horumarsan oo leh nidaamka qaybinta Lukid, waxaa laga yaabaa inaad dib uga fikirto xeeladahaaga sababtoo ah halkan waddooyinku waa furan yihiin. Ganacsatada yaryar si ay kaaga caawiyaan inaad isu geyso qaybo iyo sida ay u qaabaynayaan ama u saameeyaan suuqa. Qaybinta waa hal faa'iido oo ay macaamiishu gaar ahaan kuwa dakhligoodu yar yahay ama aan iswaafaqayn ay ka helaan. Ganacsatada yaryar waa halbeegga cabbirka maadaama ay inta badan badeecado ku iibsadaan jumlad kadibna u qaybiyaan qaybo badan oo siman si ay uga dhigaan kuwa la awoodi karo oo la heli karo. Tani waxay noqon kartaa habka qaadista sida caadiga ah ee loo isticmaalo saabuunta oo lagu soo gato 10 ama 15 kiilo oo bac ah, kadibna lagu soo celiyo warqad ama bacaha 500 garaam ilaa 1000 garaam. Sidoo kale saliidda cuntada lagu kariyo, staples iyo bur si loo sameeyo qaybo yaryar oo siman sida birta. Saabuunta dharka lagu dhaqdo, qiimaha lacagta caddaanka ah. Tan waxaa loo isticmaalaa marka cabbirka jireed uusan macquul ahayn oo ay ku badan tahay iibiyaasha. Intee in leeg ayaad haysaa? Waxay kuu soo diri doontaa lacag u dhiganta. Iyaga oo taas ka jawaabaya, qaar ka mid ah shirkadaha FMCG waxay soo bandhigeen xirmooyin la cabbiray si ay u daboolaan baahida macaamiisha. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanshaha qiimaha ayaa weli jira. Baahida loo qabo ganacsatada yaryar waxay inta badan iibiyaan badeecooyin iyo adeegyo baahi badan loo qabo ama soo jiidanaya dhaqanka maxalliga ah si ay uga fogaadaan qaboojinta raasamaalkooda yar iyo aqoonta wanaagsan ee suuqa. Waxay ku guulaysteen inay u beddelaan dambiisha wax iibsiga ee macaamiisha. Magaalada Arusha ayaa si xawli ah uga socota ganacsiga dhaqista baabuurta iyadoo ay doorbidayaan ciyaartoyda maxalliga ah ee safka hore kaga jira Tengeru ilaa Sanawari ee ku teedsan laamiga weyn, iyagoo si degdeg ah oo qiimo jaban ugu fidinaya gaadiidka safari ee baahan. Cunnada waddooyinku waxay soo jiidataa tiro aad u badan oo cunto ah oo leh noocyo kala duwan oo macaan gudaha ah oo la bixiyo, laga bilaabo sege ama mihogo iyo kukaanga caanka ah ilaa urojo ee Zanzibar. Waxaa xusid mudan in halkan lagu xuso Ajinomoto, milix shiinays ah oo loo isticmaalo marination barbecue ee lagu ansixiyey. Mishkaki iyo suugo soy ah ayaa helay habka dhadhanka ee gudaha iyada oo loo marayo cuntada waddooyinka.